السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلقد نقداوني سانوا على اوفيشيال وانيغو ولالكينا ابراهيم ام صاحبكينا سبسكرايب iyo share waa xaqiina anin waxay tahay dhiirigelin insha Allah. Marka qisadeeni oo qaybtii koowaad waan soo daabanay sad ula socoteen waxaan noo bilaaban doono qaybtii labaad waa qisadii Rumaysa. Maxaa u dambeeyay Rumaysa ayaa qisadeeda maanta halkan ka daawan doona. Waa qaybtii ugu dambeysay ayaan dhameystiri doonaa insha Allah. Waa sidii ay idinka ballan qaaday in dib aan u soo deedano qaybta lamaad insha Allah. Marka sidaas ayaan insha Allah ayaan ku geli doonaa qisadii dhameystirkii Rumaysa qisadeeda ah. So marka waxaa idin leenahay mar walba dhankiina waa subscribe kuwa xaqiina, share kana waa xaqiina, anigana waxay ii tahay dhiirigelin. asxaabta ha iloobina. Marka sheekada hore oo la socoteen Bushra ayaa ka sheekeynaysa sheekadan ilaa iyo hadda iyada ayaa ka sheekeynaysa Bushra. Rumaysana maxaa u dambeeyay? Wixii u dambeeyay ayaan qisadan dhameystirkeeda ku daawan doonaa insha Allah. asxaabta waxaa idin leenahay nala socda, subscribe kan waa xaqiina, share kan waa xaqiina mar walbo anigana waxay ii tahay dhiirigelin insha Allah asxaabta. Marka qisada ayaan dhameystiran doonaa in hadal idinku daahiyo maribi. qisadani waa qiso cajiib ah, aad aan ula yaabay runtii maskiintii wixii u dambeeyay. Noo wada marka qisadeen halkan ayay ka bilaabanaysaa oo aad ugu soo jawaabin musqusha kama soo bixi kartid. ciqaabtaas ayaad maraysaa. Rumaysa way iska oonaysaa, wax ay sameynayso male. gurigii ciqaaba ku haysta, iskoolkiina ciqaab dil, maclimadiina way sii dilaysaa. Rumaysa awood uma laha wax kale inay sameyso. maclimadana waxay noqotay maclimad aad u kulul. way barisay, waa ku barinayaa mar dambe waxaan ma dhacayaan, hadda kadib waan ka soo shaqeyn doonaa. maya ayay ku tiri. maclimadii way ka diiday. waxay u waday dhanka musqusha ama suuliga saad u taqaanaan. suuligii ayay ku soo xirtay Rumaysa. meesha ayaa lagu soo xiray. Rumaysa aad ay u fikiraysaa. maclimadiina waxay ku noqotay fasalkeedii say casharadkeed ay u wado, say casharada ardayda ugu sharxisay. waxaa dhammaaday waqtigii gambaleelka ayaa dhacay. waxay islahayd Rumaysa agteed aad, laakiin nasiib daro waxaa usoo dhacay taleefaan degdeg ah oo gurigeeda ah oo arrin muhiim ah. kadibna way baxday. waxay wacatay taksi. maclimadii tagsigii ayay kortay. laakiin maskiintii Rumaysa maxaa u dambeeya? suuligii ayaa lagu soo iloobay. maclimadii meesha ku xirtayna way iska baxday. Rumaysa say ugu jirtay ay u maqlaysay qaylidii buuqii ardayda ayay hal mar shaqartii waasay. waxaa u maleynayaa inay maclimada i ilowday, anigana meeshaan ay igu xirtay. Rumaysa waxay bilaabtay inay ooyso, ay khayliso, ay bilaabtay oohin, in albaabka ay garaacdo, ay isku dhufato si caadiga ahayd. iskoolaadkan waxaa jiro waardiye iskoolka habeenkii ilaaliya soo controla kadibna uu xiraayo gurigu aaday. laakiin waardiyaha habeenkaas ma uusan xirin albaabkii, ma uusan controlin iskoolkii. albaabka ayuu iska soo xiray. Rumaysa meeshii ayay ku ilowday. habartii murug ayaa haaso. gabadhii mar walba way soo daahi jirtay, laakiin xilligan ilaa iyo hadda saan uma soo daahi jirin. maxaa ku dhacay? waxay taleefon wacday aabahee oo qaylida badnaa. ayay ku tiri gabadhaada ilaa iyo hadda way maqan tahay, bal ka doono ka wardoon ilaa iyo hadda amay wax xun ku dhaceen. gabadhii ayaa hooyadii dhehaysa gadoon iskoolkiina kasoo fiiri. laakiin waxaa la soo wacay Bushra, waa maclimadii professorkii iskoolka. markaas ayay ku tiri ardaydii dhan way baxeen, wax iskoolka jooga male, way baxeen ayay ku tiri. gabadhii waa la la-yahay. meel walbo raadis say u raadinayeen way waayeen. meel walbay ka waayeen. asxaabtii dadkay la socon jirta asxaabna ma aysan laheenin. al-ultim waxay imaadeen, ugu dambeyn waxay imaadeen booliiskii ayay u sheegeen. waxay ku dhahdeen gabadheena way maqan tahay. gabadhiina waxaa laga sheegay akhbaaraadkii ayay ka sheegeen. si sibiradeedii waxeeda la faafiyey si loo ogaado in meesha ay jirto ama meesha ay ku maqan tahay. akhbaaraadkii ayaa adduunkii la wada gaarsiiyey. gabadhiina suuligay ku xiran tahay, cid ogmal. maclimadaas iyadana mashquul kale iska gashay oo heerkeeday iska dhaqatay, barbaleemkeeda iyo waxeeda iska xalsanaysaa. wax uga galayba male.
kadib subaxii labaad markii lasoo noqday maclimada mid ka mid ah ayaa dhahday gabartii maskiinta ahayd rumaysa ilaa iyo shalay ilaa iyo hadda waa la la-yahay ilaa maclimadii kale xisaabiyada ahayd oo cusbeed meeshay taagneed hadalkii ayay maqashay ayay markaasay buudi allah ognay arwaay suuligiiyan kusoo xiray orod dadkiiyo maclimiintii dhan waxay u ordeen dhankii suuliga ama musqusha saa u taqaaneen musqushii ayay albaabkii markay fureenba waxay arkeen maskiintiiyo cabsi darteeda dhulka yacni ay ku dhacdayo indhaheedna aada u furan yahay uuhin iyo meeshiyaa laga bilaabay uuhin maskiinta way dhimatay waxayna ku dhimatay cabsi iyo gaajo iyo qabuub dartiisa ayay la dhimatay maclimiintii meesha uuhintii meesha ku xiraysay oo xisaabiyada ahayd ay uuhinta waxay ka shalaasay maxaan saan u sameeyey maxaan anaa ka dambeeyey waxaan ayay bilaabtay markaas rumaysa ambalaas ayaa loo keenay waxaa la ogaaday inay nafta mar hore ka baxdayba nafta inay mar hore ka baxday ayaa la ogaaday ambalaaskii ayaa lagu qaaday kadibna waxaa la shaaciyey gabadha in la helay sababtoo ee marka hore waxaa lagu baafiyey in gabadhii ay maqan tahay laakiin hadda in la helay ayaa la sheegay kadibna akhbaaraadka lagu faafiyey si dadka ay u ogaadaan gabadha inay dhimatay ay u dhimatay wadni istaag iyo gaajo maclimadii falkaas samaysayna waxaa lagu xiray xabsiga ayaa la dhigay ardayda ayaa codsaday in maclimadaas la xiro saas darteed aabihiina wuxuu dib ugu shalaayay suu ula dhaqmay gabadhiisa u qayliyey uu u garaacayay familkiisa aada ayuu u yacni dib ugu shalaayay ugu dambeyn sheekadii halkaas ayay ku dhammaatay laakiin annaga ahaan awlaadda markaa haasano ma dareemayno inay nicmo tahay markay naga fogaadaan ayaan dareemaynaa inay nicmo noo tahay awlaadda inay nicmo noo tahay marka asxaabta waxaa idin leenahay qisadan si xaqiiqda u dhacday iyo dad kalena ay kusii dhicin asxaabta noo sheer gareeya insha allah awlaadda waa inaa guriga markay joogaan si fiican loola dhaqmaa sidaas ayay sheekadiina ay ku dhammaatay insha allah waxaa idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah waa ibraahim maxamed walaalkiina halka aad ka daawanayseegna waa ala official waxaa idin leenahay soo dhawaada asxaabta wabilaahi towfiiq